السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابته بيجكينا أورجانيك بيجك دكتور فردوسون سلامية. أنا قبلها قيمة قايها بدن لي قبلها سومالية أعلى إني سلام عمل كستو شوكتان. سوسو نقد ونكسن. أريمير أيا إذا كم خنابريهان أو لايف كي أنا أوجوجي. هذا الحمد لله هذا إسكسو الله مناي. وحنجع له مرور بإنا إدين فائديو. oo in kaga faa'iideeyo waxyaabaha anaga aan helno inaana la qaybsataan oo nala wadaagtaan oo gabdhaha especially isticmaalo waxyaabaha la isku qurxiyo waxyaabaha la isku qurxiyo gabdhaha isticmaalaan aad u la hadlaaya gabdhahaas waxaan jeclahay inay adduuni aakhiraba badbaadaan because wax mataqaana aan fiicnayn oo adduunkina kugu dhibaateenaayo aakhirina ilaahay kaaga caroonayo ma fiicno run ahaantii qof ku nacab waa qofka aan ka waaninin waxyaabaha xun ee sameynaysid waan jeclahay gabdhaha Soomaaliyeed kulligoodba meel kasta ay joogaan walibana gabdho badan waxaa jiro gabdhaha ku faano maqaarkooda kalarka Soomaalida aad u jeclahay oo idin salaama kulligiina fadlan hadii la maqlaayo ku maqleynaa dhaha hadii la maqlaayo fadlan waxaan rabaa inaan dhowr gabdhood waco oo gabdhahaas aan ka wareysto xaaladoodii sida ay maxallihi jiray ahaayeen dhowr gabdhahaas marka waxaan rabaa inay ka bixiyaan comments wixii ay ka faa'iideen idinkana sidoo kale mid kale waxa ogaataan organic qiimo dhimis uu sameey rabaa oo iida waxaan sameynayaa qiimo dhimis maalintii hore iidii hore waa ogeedeen qiimo dhimis loo sameeyay ladin sameeyay please hadda ay maqlaysid oo ku maqleynaa dhaha mi maqleysaan okay qof maqlaay haduu jiro marka waxaan rabaa inaan gabdho waco gabdhahaas aan ka wareysto sidoo ay uga faa'iideysteen insha Allah waxa ugu horeyso oo wacaya gabadha ugu horeysa wacaayo waxay noqon doontaa insha Allah abaayadeena oo alaab la isku caateeyo waa hooyo nuujisa ah oo ilmo naasiiso hadana jecel inay is caateeso oo dhakhtar u soo qoray daawadaasna way qaadan weysay hadda waxay fursad u heshay inay isticmaasho alaabtan organic sida kaniiniga iyo kafeega marka hooyo kasto uur leh waa isticmaali kartaa isku nafaqeyn kartaa hooyo kasto nuujisa ahna isku nafaqeyn kartaa haddana wuxuu ka saacidayaa adigoo caafimaad qaba ilmahaaga caana la'aan ku dhicin abaayadeena hada wareysan doona insha Allah sidee ayada noqotay insha Allah lambarkeeda hal mar u galaya wixii ka faa'iidaan ka wareysanaya okay afar okay abaayadeena hal mar waceena hadii telefoonka qabato insha Allah waxa ku dhacay adu toogada noo dhicwaayo abaaya kala waceena insha Allah ayada wareysanayna kajar waxaan kala waceena insha Allah abaayadana waan wareysana bal ayadana alaabta sidii uga faa'iideysatay maanta waxaan rabaa
inaa idinla wadaago oo keliya alaabta faa'iidada leedahay qiimo dhimista la sameeyay iyo inaa idin soo laabtay inta hore idinkugu faa'iideyn jiray insha Allah in ka badan inaa idin faa'iideyn doono. Hello, assalamu alaykum Maymuna. Hello Maymun, abaa isee tahay? Hello Maymun. Hello Maymun. See tahay abaa Dr. Dosa page-keeda. Mi maqlaysid miya hal mar page-ka ku jira alaabta. Adiga waa ku maqlaaya haddii maxaa la dhihi jiray oo ay maqlaysid wax yar overview inaa ka bixisid araba ay alaabta sida uga faa'iideysatay insha Allah. alaabta organic wallahi nafta alaabta waxyaabo badan aan ka faa'iiday sida alaabta timaha oo tinta kobcinayso ani marka hore waxaan isticmaali jiray kiimiko oo iibinaaso okay haddana wixii oo dhan waa ka maarmay oo alaabta keliya isticmaalaa dadkeedana aad ay isu bedeshay ما شاء الله حق كريمة alaabta kale ayadana oo lisaace spirulina miisaanka lagu dhigo alaabaha kale ayadana wejiga loo isticmaalo halka marka hore wejiga kiin isticmaali jira hadda laakiin ana wax kiimika ah yaraad aan isticmaalin ما شاء الله أباي معانتو أقصود بيننا إن شاء الله إنك بدن إنا كوفا إذينا رجينا يا وحكسونك سلامة قرحي مهدسني وانت ساعة أباي لا صحيح هاد overweight إن شاء الله هذا ألابتي كفا إذا ستي وين كو قناعسن تهاي مدب كذا because وحا قفك ما أهان إنه محل له جري وحيابه وصن الله كرا لهن وقروح كراديو قروح ذا لجو شيء جاي ومدة طبيعي جاه وإلهي كوجو نستي ومخار كاجا وإلهي كوجو نستي أسوق عافمات قبل هذا هي ستة الحمد لله يعني عافمات كل شيء قالية ما لقطه ما محل له جري هذا أمر نيسين إن حم سوقية ذا محل له جري أكهل يسين عافمات سوقية هذا أمر نيسان إن عافمات كهل يسان oo lagugu sheego kareem kasta inuu caafimaad ku siin karo oo maqaarkaagi ina gacantaada ku haysid oo caafimaad lagugu sheegay waa ku qaldeen waxaan rabaa gabdhaha inaan ka waaniyo in badan waxyaabaha u dhibaatada gabadha rabta inay xaqiiqada ogaato xafiiskeena han ugu soo booqato waxaan tuseynaa insha Allah ama ala kulansiin doonaa dad badan oo rumaysan oo dhibaatada ay kala kulmeen wareega iyo alaabaha isticmaalayaan iyo maxaa dhihi jiray kiimikada ay sameysanayaan inaysan waxba ka faa'iidin marka xaqiiqada jirta waxa waaye qofku ilaahay iimaan siiyo ayaa horta maxaa dhihi jiray aaminayo inuu maqaarkiisa u qurxoon yahay madowna ceeb ma ahan madowga ceeb ma ahan hadaa madowdahay ceeb ma ahan hadii maxaa dhihi jiray hadii aad madowdahay ceeb ma ahan hadaa cadahayna ilaaha ku cadeeyay alxamdulillah هذا مارين تحي بابا مذبك أوقف عن هذا الصومالي أو الغفانو مذوقنا نحل له جرا وصومالي وكفانو جرت أنت جيدها فلان على هر لمن كهرة وحنا هاي صومالي نديرو مذو وصومالي وأنا هاي كهيس جرين مركا قبلها حالي هاي أباي إسكلاف وحاوي أباي ذينا كعلينا هالمر دي تلفن كذا ونودعه أباي كعلينا يا وهو نوجس دونو دع إن شاء الله مركا حاليا just busy ويا أملينا أبايضا أو تيمها كفائدة ستايضنا أنا مع إذا نتمهي كفائدة ستي مركا قفل بق تمها جوما بهنا جلعسة وحياة وبدنا جلعسة أقمار ميسي وحياة جلعسة أقمار ميسي لا جرا أورجانيكا
waa sir علشان wuxuu ilaahay ku siiyey oo acshaabta ama dhirti oo ilaahay lagu maneystay aaba wax walba ka heli karnaa. halo assalaamu calaykum istanbul abaayo soo dhawo. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. fiicanah abaayo waxaan ku jirnaa barnaamij fiican abaayo waxaan ku jirnaa barnaamij live oo uga faa'iideynayna gabdhaha Soomaaliyeed waxaan ku jirnaa barnaamij live oo gabdhaha Soomaaliyeed uga faa'iideynayno marka adigana waxaa ka fahantay organic iyo sida u fahantay iyo qaabka uga faa'iideysataan la wadaag insha Allah. codkaaga kor u qaad codkaaga kor u qaad abaayo. codkaaga waa bafooya ma baan igu soo celi mar labaad. okay موبايل في حياة لينكم فيه abaa codkaaga kor u qaad maxaa dhahday mobilkaaga ka wac. okay mobilan ka soo wac midka aamil iga soo wac kan wax ma ka maqlo. okay hay sande تليفونك كوعينا إن مقلي ويسي أبا هذا بمقلة أنا أكو مقلاية أوكي overview كبيحي هالمروعة وهاللي كرتايا qaabka uga faa'iideysatay organic iyo alaabta dabiiciga ah iyo farqiga u dhaxeeya kiimikada hal mar nala qaybso. Istanbul hello موبايل كذا حن اوكي واكو علينايا marka asxaabta aad idin salaama wax yar aan rabaa ina idin sheego maanta markaan gabdhahaas ka soo gudbay insha Allah maalin ay qadka fiican yahaan toos u wacayna bahalkan u jeedaan waa scrap oo babaay ah organic ah shirkaddan ugu taqaaneen DXN ka laga sameeyay shirkadda DXN ka soo sameysay scrap kan wuxuu ka caawinayaa inuu smooth ka dhigo jileec iyo waxa ku jiro lighting ama whitening ku jiro iftiin oo maqaarkaagu aad oo deep cleansing ku sameeyna nadaafad oo qoto dheer leh marka laba mid waa sameyn kartaa
markaa marsatid waa isku huurin kartaa oo si uu kuu nadiifiyo steamna aa u heshid intaa marsatid 20 daqiiqo kadibna waa ka dhaqi kartaa abaayo shamso akhbaarta iga sugaysay abaayo qalbiga daciif waaye ina ilaaba laga yaabaa mar labaad ii soo dir insha Allah وعليكم السلام marka bahalkaana u jeedaan saas sameyn kartaa xataa gabdhaha bukeerada uu anfacaya waxba yaraantiisa ha fiirin tayadiisa fiiri wuxuu anfacayaa qofka mar u sameysid every time uu ku imaana every time uu kugu soo laamana leena wuxuu ka sameysan yahay uu tayeysan yahay whitening uu leeyahay iftiin uu leeyahay oo isla markii qofka amazing ku noqonayo uu dareemi karo smooth jilaac uu leeyahay xariir oo kale wajiga ku noqonaa wuxuu kale leeyahay qofkii carabi yaqaan uu akhrin karaa qofkii english yaqaan uu akhrin karaa labadaba macluumaad ka dhargi kartid ku qoran maxaa la dhihi jiray caafimaad uu leeyahay laana waa maxaa la dhihi jiray tayadiisa aad u ilaashan tahay waa la soo warshadeeyay warshad walibana shaybaarkiisa aad u fiican tahay aad u sareyso marka bahalkan qofti barato just uma baahnaba wax kale inay sameyso asaga iyo hadii hesho saabuun just maxaa la dhihi jiray inuu qofkii aad u iftiimaya marka aad u fiican tahay bahashan qofkii oo u baahan ogowna iida discount badana la sameeyay shay kasta waxaan maleynayaa discount ku qanci doontaan in la sameynayo haduu alla karaale noqdo tanna waa saliidii qumbaha ahayd oo coconut ka ahayd oo taas ayadoo nooc walba hele hadii arabtid intaas waxaa ku sameyn kartaa saliidan dhowr shay boo ku sameyn kartaa intaa marisid habeenkii oo bac ku xirtid madaxaaga ka fureysaa sida jilciso inaa marisay madaxaaga oo kale noqonay marka waxaa leeyahay saliidan qofti barato habeenkii qaadane maxaa la dhihi jiray waxay leedahay xataa growth ay leedahay laakiin slowly waaye marka okay aba insha Allah bahashana u jeedid saliidan waxay ka caawinay inaad ka maarantid hadii like tima adayg ama qalabsan aan lahayd waxay ka caawinay inaad sameysid tima jilicsan waxay ka caawinay inaad timahaaga jajabka iyo waxyaabahaas ay ka bogsadaan waxay ka caawinay inaad heshid healthier timo oo caafimaad leh oo tayo leh oo maxaa la dhihi jiray aan go'eenin marka abaayo waxaan igu soo laabtay inaa inta idin faa'iideyn jiray in ka badan idin faa'iideeyo runtii qofka mar walba maxaa la dhihi jiray jaanisku iska yar yahay waqtigana maxaa la dhihi jiray cariiri waayo ogtihiin inkastoo iska cararayo waqtiga haddana mar walba waxaan ma aanan joojinin inta live-ka aan joojiyay oo kaliya ma ahan laakiin shaqadii waa waday gabdhaha guryahooda ku gaarsiinayay qof walba meesha joogta oo ku gaarsiinayay email-gaan ka hagaayay WhatsApp-kan ka hagaayay gabdhaha dibadda jooga sidoo kale laakiin bas inta inaan soo fariisto live-kii bas aan joojiyay haddana insha Allah waan soo ku soo laabanayaa wax walba u baahan tahay hadii aad u baahan tahay xog dheeraad ina ogaatid just way soo wici kartaa macluumaad ku qanci kartid gabdho sidee ahaayeen hore sidee hadda yihiin just anaga Soomaaliya nahay dabeecad uma lihin ama maxaa la dhihi jiray inaa sawiradeena la faafiyo munaasabna ma ahan diiniyan xataa laakiin hadii aad xaqiiqad rabtid inaa ogaatid just come to us nala soo share gareey videogan hadda aragtid share gareey si gabdhaha walaalada uga faa'iideystaan waxaan ku hayaa amazing ina ka maarmeysid chemical ismariyo ina ka maarmeysid waxyaabo oo ku cajab gelinayo oo la yaabaysid xataa waxaan ku heenaa in maxaa la dhihi jiray oo maqaarkaaga sida anti aging ayadoo leh oo kale inaad sameyn kartid marka waxyaabo oo xataa da ahaan soo yareenayo duuduubka maqaarka yareenayo madowga qoraxda iyo oxygen-ka faraha badan leh oo keena yareenayo insha Allah maxaa la dhihi jiray aan intaani in ka badan insha Allah idin faa'iideyn doona isku soo laabaneena wixii su'aalo aan qabtaan page-ka noogu reeba organic page noogu reeba Dr. Firdaws page-keeda noogu reeba inta hadda fadhidana waa idin salaamaa inta kale soo gari doonto kulli qof kasta oo video arko waxaan leeyahay isu soo noqod wanaagsan insha Allah
ها أباي جرمالك واكي هليسا جرمالك واكي هليسا وليبنا حرونت عوان كيدو دمستيران على قوسو درايا إن شاء الله أباي جرمالك واكي هلي meel kasta oo gabdhaha joogan kuwa Sacuudiga jooga xataa dhowr jeer ay weydiiyeen waa ka helaysiin kuwa UK jooga waa ka helaysiin kuwa Slovakia jooga waa ka helaysiin Norway kuwa jooga meel kasta oo joogtid waa hele Ethiopia xataa waa ka hele Kenya waa ka hele meelna ka helaynin malahan marka insha Allah waxaan ku leeyahay ku qanacsanaa midabkaaga daryeelna maqaarkaaga intaasaan ku faraa insha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته